wuxuu noqon karaa mid ka mid ah shilalkii diyaaradeed ee ugu khasaaraha badnaa Afrika. 149 rakaab ah iyo 8 shaqaalaha ayaa saarnaa diyaaradda Ethiopian Airlines oo maanta barqadii ku burburtay hawada u dhaxaysa Addis Ababa iyo Nairobi. afyeen u hadlay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa sheegay in Boeing 737 ay dhacday 8:44 daqiiqo waqtiga gudaha wax yar kadib markii ay ka duushay magaalada Addis Ababa. hadalka shilka waxaa markii koowaad laga ogaaday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed kaas oo boggiisa Twitterka ugu tacsiyeeyay qoysaska dadkii saarnaa diyaaradda Ethiopian Airlines duulimaadkeedii maalinlaha ah ee ku sii jeeday Nairobi. warsaxaafeed ka soo baxay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa lagu sheegay in howlgalkooda baadigoobka iyo samata bixintu uu ku dhow yahay goobtii uu shilku ka dhacay oo ah magaalada Bishoftu oo 60 kiiloomitir koonfur bari ka xigta caasimadda Itoobiya Addis Ababa. shirkadda diyaaraduhu ma aanay bixin faahfaahin ku saabsan tirada dhimashada iyo dhaawaca mana cadda sababta keenta shilka. shaqaalaha Ethiopian Airlines waxaa loo diri doonaa goobta uu shilku ka dhacay waxayna samayn doonaan wax kasta oo suurtagal ah ayuu yiri afyeen u hadlay shirkadda Ethiopian Airlines. waxaa lagu tilmaamaa diyaarad sumcad wanaagsan leh oo ammaan ah inkastoo 2010 mid ka mid ah duulimaadyada uu ku burburay badda Mediterranean-ka kadib markii ay ka baxday Beirut.